السلام عليكم daawadayaal meel kasta oo dunida aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii aragtida siyaasiga oo toddobaad walba ku soo marti qaadno cid aan isleenahay ama shakhsiyaad aan isleenahay waxay la hadli karaan barnaamijka aragtida siyaasiga waxaana toddobaad walba naga daawan doontaan telefishinka madaxa bannaan ee Som News TV toddobaadkan waxaa barnaamijka aragtida siyaasiga noogu martay xiriiriyaha xisbiga u cid ee gobolada Awdal iyo Salad إن عمر كسر لو برنامج كنا اللي هذا الشيء. دواهي نمعه أدبر مرت محب العرض عليا سوم نيستي في يو بدهان بحث دكتور. وان قرتي إن كل عمر سياسي بلغوا قانا لكن بالتاريخ هذا. إفكتي تاريخ هذا بحويان أنا واحد الشيء 1966 waxaa ku dhashay meeshan imika jaamacadda Camuud ay ku taalo halkaas oo aan beero waaweyn ku lahayn oo khudaar ah kadib halkii baan ka galay maaragtay waxbarashadii asaasiga ahayd tii diiniga markaan dhamaystay kadibna halkii baan maaragtay elementary schoolkii ka galay إلا intermediate كي إلا secondary كي. كانت secondary كي مركي عن شيء سيدا كبحناي وحنا ماركتي أنت يدي وماركس كسريسي وحنا معلمين كنا قلنا national service كي لنا قري secondary school عمود. أنا قلت سلام مركنا كبحنا كوي مركنا فوفر كبحنا فوم تو يفهم تريجها يعني معلم من قوي. أنا بدي أجي مع جدك مسترجع. أنت كده بيسي. كل برشة بدن غسل بستبيا يوم عاهي بدن وانقلي. وانقلت. كده وحنا بدنا حاجة وحبرشة. أيام بدنا أنا جو إن بدنا كسر بدي ماركتي بسيلة. قبل لهم. يوكو جوال كارديس كابتن كيال. وانقلت. marka uu kulay inta wixii ka dambeeyay 10 sano ugu dambeysay ayaan 15 sano ugu dambeysay ayaa siyaasadda soo gashay wali halkii aan ka bilaabay baan joogaa waan gartay isbuu asaaskiisii baan maartay la kowsaday waan gartay anigoo waqtigaas fulan ka ahaa balse aan hayn wax xila hilal kala duwan baan markaa ka soo qabtay kadib degmada iyo gobolladaba waan gartay duruufo badan oo xisbiga soo maray kulay waxa lagu tiriyaa inta badan niman dhinaca uga dhaqaaqin waan gartay xisbiga waan gartay oo yani changeable aadiya ahaan maaragtay dadku iska yar maaragtay isbedbedela sababaha qaar soo maraan baa laga yaabaa aadiya xisbiga inta badan maaragtay ay duruufo ugu adag ay soo mareen haddana nin halkiisii jooga ayaan ahay waxaan aaminsanahay kulley waa mabda' kaasi laakiin xisbiga waa xisbi qaran oo qaybka institutionska waan gartay siyaasadaada xisbiga diiradda ku haysa xisbiga u cid halkii wali maray saabad sooran wallahi xisbiga u cid waxa weeye bulshadeena ayaan u bislaan weli waan gartay oo wixii hagaagsanaa wax kale ayaa qaadaya aadiya haddaan si kale u dhigo barnaamijka xisbigu kuma bees garaysna qabiil waan gartay haddana waxaa laga yaabaa in qabyaalad lagu ololeeyo aadiya ama lacag la isticmaalo oo nin hadhow wuxuu noqon doona aan ogeyn aadiya lacag yar oo maalinta maaragtay maalin dagaala aad ku weydo maaragtay masabkii aadiya ama masiirkaagii maaragtay aad ku dooranaysay hogaankii laakiin waxaan ugu rajo qabnaa inay mar uu bulshada fahmi doonto principle-ka oo xisbigu leeyahay inay fahmi doonto aadiya oo ay bulshadeenu garan doonaan the right way ay u marayaan hoggaan fiican oo accountable leh oo iyaguna la xisaabtaan marka ay doortaan kadib waan gartay khilaaf baa ka dhex jiray xisbigeena u cid oo madaxweyne ku-xigeenkii waa idinka tagay khilaafka halkuu soo dhigtay
والله warbaahinta in badan way weydiisaa kelmadda khilaaf sidaa usii buuraan waan garta oo xisbigood cid ka jirin taagti ma jiro haye waayo haddii uu jiro waxaad arki lahaydeen gacan kale oo soo dhex gashay oo xalisidaad arki lahaydeen waan garta waxa weeye xisbigood cid shirweynayaal buu leeyahay kala fadhiyuu leeyahay central committee baa jira executive committee baa jira waxa weeye structure-kii xisbi lahaa uu leeyahay waan garta candidates baa jira the candidate maaha xasan waan garta qofku hadduu yani asbaabo badan buu uga tanaasuli karaa xisbigu musharaxiinta dee uu doortay bay ahayd golihiisa dhexe waan garta 2000 jeedooyinkii mid ahayd uu doortay musharaxiinta madaxweyne iyo ku-xigeenna waqtigaa uu soo saaray balse waxaa laga yaabaa muddo kadib kala fadhiga xiga inuu isbeddel yimaado mayd midda kale waxa weye dimuqraadiyaddu maaha single candidate haye waa in xisbiga gudihiisa multi candidate ay noqoto xisbiga gudihiisa lagu tartamo infact wax la xaliyey oo qodobo la isku khilaafsan laakiin cumarow waxaa jirtay intaan golaha dhexe iyo doorashadiiba la gaadhin inuu ka baxa meesha madaxweyne ku-xigeenkii musharaxa ahaa cabdirashiid xasan mataan sida ay warbaahinta ama siyaasiyiinta fara badan ay sheegayeen waxay idinku aaneynayeen inuu ka yimiday guddoomiyihiina faysal cali waraabe bal adigu aragtidaad maxay tahay wallaahi guddoomiyuhu fikir gaar uu leeyahay ma jirto haye xisbigu hoggaan buu leeyahay waan garta siyaasad wuxuu leeyahay mustambeed buu leeyahay waan garta ama waxa la yiraahdo maaragtay meesha ugu dambeeya loo noqon karo marjac waan garta waxa la yiraahdo leeyahay haye awee faysal haddaanu ka yeelina shalay annagaa ku nidhi musharax ma noqon karti haye shirweynihii hore haye wuuna naga aqbalay waan garta annagana guddoomiye u dooranay 5 years haye oo hadda muddo ay ka hadhan tahay kan waa kala fadhigii oo barsanka si wanaagsan ku jira kala fadhigaasi muxuu qabtaa waxa weeye qiimeyn waxaa la soo qabtay muddadii la soo dhaafay lagaga gudbi karaa muddada iyo duruufaha soo socda taas unbaa uun lasii qaban qaabilayay madashii maaragtay kale waa de cabdirashiid uu saluugi karaa isagu faysal uu saluugi karaa laakiin ujeeddadu waxay ahayd musharaxiin kale oo idinla tarsanta ayaa imanaysee ka qayb qaatay tartanka waa si wanaagsan cumarow warbixin bay soo saareen guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee Somaliland waxayna ka soo saareen gobolka bal idinku fikirkiinu maxay tahay xisbi mucaarad baa tihiin diiradda waxaad ku haysaan xisbi xaakimka laakiin ka waran warbixintii gobolka ka soo saareen sideed idinku aragtiin wallaahi waxa jira warbixinta gobolka horta gobolka wax badan ma yaalaan haye marka dhabta loo noqdo wax badan oo gobolka yaala ma wax xukuumaddu ay ka qaadato mise wax ay soo geliso haye haye waxay soo geliyaan oo maanta la oran karo waa la lusaday aad buu yar yahay haye wasaaradda laakiin ku magacaaban gobolka wasaaradda ku magacaaban gobolka miisaaniyadooda waa noognahay inta ugu raqiisan baa la siiyaa waan gartay soo aad ma garan hargeysa wax soo dhaafa haye ma jiraan haba yaraatay waan gartay gobolkana waa gobolka ugu khayraad badan Soomaaliya ee hantida ugu qaalisan laga qaato waan gartay waxaad arkaysaa maciiltii oo la guranayo si wanaagsan lacagtaasi wadda hargeysa ka timaado halkaa ka noqoto waan gartay ma soo martay degmada bakiya ka tirsan haye ma soo martay gobolka Awdal haye haw taasi waa calaamatul musuqmaasuq number 1 waan gartay ya mugdi badan baa ku jira wasaaradda maciilta waan gartay wasaaradda kalluumaysiga waa la mid si wanaagsan wasaaradda maaliyadda waa la mid haye waad ogtiin xubintan joogta maaliyadda selal ee madaxa dadka cashuuraysa ee dadka intaa ka qaylayaan maxay loo yacad kaga duwan tahay xukuumaddu walaa imiga ka jawaabi leedahay qolanteerka wajaale iyo ka Soomaaliya loogu gudbay maxay kaga duwan tahay xuduudda loo yacad haye ee loo cashuuraya madaxa dadka ee labadii dhinac Djibouti iyo Somaliland ay ka cabanayaan
وامر سبحان الله وي هدي ليش دغيسن واي هدي حكومته ay tiraahdo sir deegaan fursa amar subxaan Allah wii marka arrimaka culus baa nin ay jira musuqmaasuq waxay ka musuqmaasuqaan oo la siyaabo horta gobolka ya laakiin anagu bal waxaan leenahay bal musuqmaasuq waxaan u aragnaa khayraadkiisa la guranayo iyo infrastructure-kiisa burbursan ee maanta hal wado oo baki ku xiran hal wado oo luqaya ku xiran jirin dadkii oo tacdareysan dhaqaalahoodu aad u liito khayraadkoodina la guranayo si wanaagsan taas waxay aqliga saliimkii wuxuu qaadan kara ma noqonayso waan gartay waxa dhawaan Cumar oo ka bilaabi doonta gobolada Awdal iyo Salal commission-kii ama waxay iman doonaan commission-ka iman doona idinku nidaam nooceed aad uga hawlgalaysaan ama qorshe nooceed idin yaala talo anagu waxaan kala midnahay xisbiyada ayaanu kala midnahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana fursad wanaagsan waan gartay waxaan halkan baaq marka hore ugu jeedinayaa bulshada ku dhaqan Awdal iyo Salal waxaynu ka cabanaa waa saami qaybsi laakiin tani waa furihiisaan qaybsi waan gartay marka qof walba hurdada ka kac qof kasta oo gaadhay waqti uu wax doorto ama la dooran karo qaado kaarka codbixinta ayaan ugu baaqayaa nin gees ilaa gees waan gartay inta ka maqan dalka gobolada ku maqan hareeraheena ku maqan xadka ka baxsan waxaan ugu baaqayaa inay si dhaqso ah u soo galaan muddada diiwaangelintu ay ka soconayso gobolada Awdal iyo Salal oo ku beegan bartamaha bisha February waan gartay inta ka horeysa inay soo galaan wixii dabiici ah dhisastara maxay ahayd abaara iyo wax la mid ah iyo barakaca waa oo kulay waxaan ku dadaali doonaa ama aan ka codsanaynaa hay'adaha ku shaqada leh waan gartay inay group mobilize maxay ahayd mobile oo area-yinka maaragtay ay dadku ka guureen ama u guureen ku dhawaan kara inay u sameeyaan waqtigana in loo kordhiyo ayaan waxa kaloo gobolkan Awdal dheer waxa burbursan infrastructure-kii oo wadooyin ma lahay waa buuro qofku buurta dhinaca kale ka jooga sida أو حاجة سكوك سوينا لا تضوات كم مالي مات بالغيا بورصة بين عيقا كله وتولد أي كتالين مات بالغيا بس إنه عيق جلين تنا لكم بيه مدة كارد أنتنا مدة لقود رأيان كعسينا إن عمره يايدين مشرح ما كان ساكولا يوحنا كودا إذا حنا كحيان يايدينا ولي هوش ما قلفني ما كسر يسوي حسبي فاكتي كل ماذا حنا كحيان وحنا دوران قلفني كذب أي دوران تون قبل يجي سافر دوران هنا وقت جالس لوجان دونا بدنا مشرح هوا حسبي وقتي مدحوني واسوى ناكسن مدحوني حساب بندق قطبتي أما وربحنتي سند لا هيد ووجهين شيء لبض قلقرن قلها وكل ذي قلها جورج ده وحبذا بوكال بل إنكم حتى تكقبتين حسبي نوع والله مدحوني هو كل يوم مدحوني قرن كه سنة والبا خطبته وشيديا لكن سوما لنا حكم مرحلة دائما سمانت هدي أتاي حقي إسراف كابنته هدي أتاي حقي ماركتي بقاله هدي أتاي حقي ديمقراطية ده هدي أتاي حقي أمنية أنت والله قيمان كلام وقتها وحوي سوما لنا مرحلة بدون بس عمرتي من 1991 مرتي حرية سيدي ما عرفت أي كبح ذي ماشى حكومة محل سياد بحر كعضو في الجنوب في ذي وحوي بيلا بس السومال لان ويسكو تجين وحي دور تاني نجار سكو تاجان إسلام مركان أي مام الدولة سمستان مام القاس ونقضه مثل ملذي ستاهي وضن هلا دولة وناكسن مام وناكسن دقالة يحرم مرحلة وانقلت معترف عالمك أيه هملة اللي هي سنة أنا قان دونين إن بلشة ميتشبينه أو لقي إثبات اللي بيقول بكرة وحيد اللي هي شيء حضرنا ما أنت جمر كان كسوق على حكومة جودة بس ده ريال كبح الماشى جمال سيود نكوه ضل مدرسة يضل مدرسة كوري شيء ده ريال كاين سنة بدلي أنا وكوري شيء واحد مال سيتري مترتو
hadda intii xukuumaddan kulmiye ay jirtay waxaa jira kala qoqob badan waxaa jira tabashooyin badan waxaa jira hanti boob badan waxaa jira musuqmaasuq baahsan waxaa jira maaragtay waxay ku eedan jireen xisbiga kulmiye markuu mucaaradka xukuumadda daahir rayaale waxay boobaysaa hantida qaranka oo guryo yaryar iyo kalluumaysi bay ka hadlayeen war ilaa haamin shidaalkay ku dareen haddana waxa weeye shacabku isagaa nabadda ka jecel mar walba xukuumad kasta laakiin xukuumaddu dhinaceega kama danaynayso waxa weeye waxaad arkaysaa dil loo geysanayo shacabkii imiga dhalinyarta oo kale war ciyaarihii xagee ku dambeeyey ciyaarihii gobolkan awdal ma la isweydiiyey weli gobolada somaliland xagee ku dambeeyey xagee ku joogsadeen carruur baa inagaga maqan oo 3 ciyaala ku dhintay gabadh baa marka kadib waxay ku joogsadeen halkii aad arkayseen oo la yidhi barina waxaa ka soo baxay 4 gobol boormana 4 gobol baa ka soo baxay kulankii hargeysa ay isugu iman lahaayeen oo caasimadii muu dhicin weyn marka eedu ma saarna oo madaxweynuhu kaliya dhammaan madaxweynuhu dee madaxun buu ka yahay madax meel ka sareyso la salaaxay jirtay wasiirada arrimahaas oo dhan dul hoganayaan qof walba dee shakhsiyadiisa maalinta dee ilaahay la hor taagan yahay qofna hebel iyo hebel laba qof walba intii uu mas'uulka ka ayaa laga xisaabtamayaa war wax weeye dhaliilo badan baa jira oo ciyaarahaas oo kale ku fashilantay totally Soomaaliya waxaana ku maqan oo nafahoodii ku waayay dad dhalinyaro oo maanta waddanka u qaban lahaa weliba ka baxay goboladan laakiin shalay Cumarow wax badan buu soo bandhigay madaxweynuhu kasoo ku socdaa waxa weeye taasi waa qayb ka ahayd si wanaagsan waxa weeye musuqmaasuqa anagu musuqmaasuqa waxaan u aragnaa iyo sixir bararka aan israaciyo labadaas sixir bararka horta waxa keenay 3 arrimood waa ta koowaad resourceski waddanku lahaa oo waxa weeye xukuumadda ay noqotay mid inta banaanka shirkad kula soo heshiiso weliba aan muxtarif ahayn oo caalami ahayn oo aan sharcigeedu wax buuxa ahayn inta la soo heshiiso ay kala baydho golihii sharci dejinta ansixin lahaa ay markaa deegaankii toos ay maaragtay u geeyaan lacagta ay ka qaataan mid deegaankaa ku soo noqonaysa ama Soomaaliland wax loogu qabanayo maaha musuqmaasuq baahsan bay had iyo jeer dadka arrimaha u dhow daloola ay tilmaamaan wasaaradda badan oo ay koow ka tahay wasaaradda macdanta tamarta wati wasiirkii loo yeeriyay maxamed xaashi si wanaagsan هو مدحونا قوسكيس واتي ماركتي هانتدو إلا حتى شقينيا وميل التلمامي مسلمان سقوط التلمامي بارية ما هينو أكتف معها هي داتي إن بمشاركين إسقاطه إسقاط اللي كذا صح كذا واحد لا يبغى كذا عنده يبغى الجيا مركا وحوي arrimo badan oo khaldan baa jira musuqmaasuq oo aad u baahsan yahay wax koob iyo laba aan ku tilmaami karno wasaarad aan musuqmaasuq jirin wasaaradda maaliyadda waana ka hadlay maaragtay mas'uulkan loo yacada jooga oo shacabku intaan ka mudaharaada ee shacabka dhigaya taag daran iyo ku kalaba way xukuumaddu ay weeraysaa way madaxweynuhu uu noogu eegaya in ka yaraa adeerkooda waan gartay waa su'aal horta oo dadka reer awdal iyo Djibouti ay suudiinayaan ilaa maanta hantida uu halka ka wariyay inta isagoo madaxay dadka cashuuraya haddana seela wax looga qabto ma garan karo dadku way tacbirayeen shaqalaan ba jirta waxa inta raaca wasaaradda kalluumaysiga maraakiib badan ku soo daayeen maaragtay wax ku jira sicir bararka haddaba taam xabadilkaaga haddii macdanta maanta abaablo dadkaas oo loo iibgeeyo si wanaagsan iyagana qiimo jaban laga qaato waan gartay shirka Soomaaliland qaalib uu noqon lahaa doolarkuna qaalib uu noqon lahaa hoos buu dhici lahaa kalluumaysatada kale haddii inta iskaashateen loo sameeyo soo kalluumeeyo naga iibiyo la yiraahdo marka xukuumadda ay iibgeyso
casiis ma noqonaya shirka Somaliland taas waa qodob banki system oo aan maamuli karaynin ama awood u lahayn sarfreyaasha maartay wadanka control waa qodobka labaad iyada talabaad saddexaad waxa weeye ugu daran lacagtan badan ay soo daabacanaysa xukuumaddu ay ku raadinaysa marka dollar haye la safaraysa si wanaagsan taasina cirka geynaysa shir Somaliland xiriirkii Somaliland bal iga war halkuu maraya hadda waxa weeye ee wadamada caalamka ay lahayd aad buu hooseeyay haye aad buu hooseeyay de kala soo qaad Djibouti waxay naga xanaaqsantay $1,000 laga qaaday halka qofkii gelay ama ka soo baxay amniga la ilaalinaya waa gaar oo lagu shaqeynaya haye Ethiopia oo waan heshiinay waxa shalayto wadiko gaariga caafimaadka lagu afduubay Farawey haye ilaa hadda xukuumadda Somaliland awood ku soo celisay ama meel ku sugan yahay la garanay waxaas dawladnimo laguma tilmaami karo heshiisna laguma sheegi karo waxa looga baahan yahay xukuumadda siyaasadda hadda waliba siyaasadda arrimaha dibadda inay ka bilowdo gobolada geeska Afrika haye ka dariska wanaajiso ayaa caalamka ku wanaagsanaanaya markaas aad ixtiraam filaysaa haye laakiin haddii maaragtay aad gudololooyin leedahay ma noqonayso kuwa kasbada dariskaaga gudahaagana maaragtay ma dabooli karaysid caalamkana xilli wanaagsan ma yeelan siyaasi Cumar Daahir Cilmi waa xubin ka tirsan xisbiga Ucud laakiin kasoo siyaasadiisa oo qorshaysan mustaqbalka waxay tahay hadday xisbiga Ucud noqoto iyo hadday kale maanta Somaliland iyo wadamada kale midkii doontaa noqoto anigu waxaan jecelahay institution ama system إذا حس في أوعد هدول المادي أنا جوا يجوا هي نبدأ يجوا كم رددي وقت حاضر كنا وحى كل الجنون اللي بحبوا لي هاي أنا وحنا هاي مشرع قبل الله ما ركت قبل كجميع قبل كم رجع عضو قبل الله قلبات كمت كم ذا كشرحان أيام ولا خاصة مالتي قولك من الرجاء دقمة قبيلي أيام مارس مشرح كل واحد وكيل الله أنا كنا قلنا جونيا سيان هالك شرعينا وقصحنا كخلنا سومالي إن عمر وسياسي محلس أورانكرا سياسة ضوي كدلس marka hore waxa ay shakhsi bulshada ku dhex nool horta politicsku ma aha wax maaragtay marka macnaheeda sidaan u aaminsanahay soo kooba waa sidii dashood wey haddii raaciyaad maaragtay ku gaari lahayd maamul fiican iyo adeeg wanaagsan bulshada ugu adeegi lahayd anaad ku maamuli lahayd weeye waxa weeye waxyaabo badan baa ku soo maraya cadaalad darro badan baa ku soo maraysa daryeel la'aan bulshada haysataa ku soo maraysa anuma waqtigii horta aan soo galayay waxaan u lahaa bulshaduna daryeel ha hesho cadaaladna ha helaan sida ka muuqata sumadda xisbiga si wanaagsan inta badan marka barnaamijyada xisbiyada kala adeegto barnaamijka ugu dhow ee bulshadu inay si siman u qaybsato ogol way barnaamijkiisu xagga waxbarashada iyo caafimaadka يعني هو برنامج هدي القادم لها وطن هرمر بوحة قالين ده عمره حسب جواتنا في الصواب بندقي برنامج كي حسب جي سكوا عدنا هاي السياسة السومال لان أي وقر شيء صارت إذا كل حسب جي رعد قرمة الصواب بندقي سانتولا وقت كابتن نايجا تعدان هو حسب جي قرب كم يهانج الحسب جي سوين عدسل أنا بحيوي لكن قعدي وضل ما كيتها يعد بدأوا هي برنامج كوجا ندي نتاك يجوا سيدا واركام واحد حاولي لو تعمسي بشدة أيوة بقى خصوصا أنا هو داخلين برنامج كوجا لكن واحد هو بقى كوعد إنه يعني بشدة والدري ليه ذلك كان يوفيني كرا سلاف روحه iyo maamul wanaag iyo dawladnimo iyo Soomaaliland waan qartay gabagabadii aynu soo gaarnay Cumarow kasoo laakiin hal su'aal aan ka hormarinaya waxaad ii soo tilmaamaysay in xisbiga uu cadaalad iyo daryeel ka shaqeeyo
gobolada awdal iyo salal ama gobolada galbeedka Soomaaliland mudooyinkan ugu dambeeyay hawlo badan baa jiro oo xukuumadii u kala dambeysay Soomaaliland ay ka cabanayeen xisbiga cud ma laga yaabaa inuu meel gaarsiin karo tabashada iyo cadaalad darrada ay sheeganayaan dadka degan gobolada awdal iyo salal ama gobolada galbeedka Soomaaliland course hadaan gaarsiin kuma baan jireen aniga haye marnaba kuma jireen madax gudoomiyaha xisbiga last week hay ku celceliyay inta dadkeenu iyaga fahmay hay ku celceliyay inta war hal saxeerkii baarlamaanka halna sideedada hay hal raasi laga cabanayay hal ku aw dadkii doonay haye talab ay isweydiinay waa qaylina anigu malaha markii shanadan ka hadlay hay waxa reer awdalo in badan baa saamay qaybsi ka cadaysan waxay idin banaan waxay koow inay qaataan kaarka haye muwaadiniinta haye warta kale isla weydiin maayo haye oo waxa lagu saleyn doonaa xildhibaanka ka soo baxa awdal iyo xildhibaanka Hargeysa ka soo baxa inay isku tiro ku soo baxaan ma aha sidoo hore haye inuu irro oo saaxil ka soo baxayna 500 ku soo baxo abdiga gaalo oo hay ka soo baxayna 12 kun oo xildhibaan ku ah waa gaab aad u kala fogsan طبعا سأكتب الملاعة أنا وإلا بالانس كريان دوني وجوليها يقولون لجوها هذه شيء من الصحابة وإلا بالانس كريان واللي بني كلا ده تونك كنا عد جوليها معها برلمان كي كمان في شنطة بقول عد واحد قاعد يصبح وجوليها إرهاب وعدالة درجة كتير عدالة درجة كتير سو أنا العد كلا كعبنا أنا نقول نقول عبد الرحمن عرّو وكوبي لا تنكي سيدة والعد أنا مركو ربوا الجمهورية هيجوا يسووا ولا شبين الجمهورية برهم مرنا ملقيا بين السياسة هذا حزب قعود سبتش حزب كلاو دي قرقته مرنا الله واحد أذقني ود أذقني ما كنت كرابان حيه سمع قال وان قلت لكن لا هذا ولي وان كشريه جبل بالشدة محاد أدري سافرين حزب قعود ولي لما ندك شعب وينها كل دقن الصوماليلاند maadaama xubin ka tahay xisbiga tahayna xiriiriyaha gobolada awdal iyo salal marka ugu horeysa waxaan ugu baaqayaa dadkayga ku dhaqan gobolada galbeedka inay nabad iyo midnimo ka taliyaan iyo guud ahaan Soomaaliland marlabaadka waxa weeye inuu hadafkeenu mid yahay Soomaaliland wax la yiraahdo wada nahay Soomaaliland waa in wallo wax dhinacaaga aad ka dibtaado ixtiraafna ugu raadiso misool ilaa la yacdo ugu dambeyntii waxaan ku baraarujinayaa ummadda reer Soomaaliland inay qaataan kaarka codbixinta isla markaana hoggaanka ay dooranayaan horta waxa ma dooran kartay adigoon qaadan kaarka marka horeba kaarka inaad qaadataa marka waa daruuri markaad kaarka qaadatana hoggaanka aad dooranayso han noqdo mid accountable ah oo la xisaabtami karto oo codkaaga wixii aad ku siisay ku bedelatay aad hadhow maxaad qabataa oran kartaa si wanaagsan laakiin iska ilaaliya mid inaad qabiil ku doorataan iyo inaad lacag yar oo dadama ah aad ku doorataan labada un iska ilaaliya reesumay waa si wanaagsan daawadayaal kaasi wuxuu ahaa siyaasi Cumar Daahir Cilmi oo ah xiriiriyaha xisbiga cud ee gobolada awdal iyo salal oo barnaamijka maanta ee toddobaadkan aragtida siyaasiga marti noogu ahaa waxaan ila socodsiinaysaa oo idiin soo diyaarisay anigoo Nimco Cumar Xuseen dhanka kamarada waayda habeyntii isku dibridka barnaamijka waa Nuuridiin Cabdullaahi Dugsiye intaynu toddobaadka dambe iskaga imaan doono aniga iyo martideedii inta na daawanaysa waxaan idinka tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh